boqorrada kibray maanta saasay yeelaan guri baad arkaysaa la dhisay oo la yidhaha boqorku sanadkii buu maalin yimaadaa mid boqorradan carbeed ka mid ah waxaa la tilmaamayay gurigiisu 365 qoloo la seexdo hurduuleeyay oo loogu beegay maalin bacdeedu intay dhaqaaqayso kijada iyo musqulaha ku yaallaa 700 ah waa bini aadamku si uu nool yahay nebi maxamedna wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam nin safaroo geed harsaday ayuun baan la mid ahay buu leeyahay intan adduunka aan joogaaba geed la harsaday kama gedisna idan ayuha alaxiba xalku waa qasru lamal xalku waa inaynu yididiiladan dheer soo gaabinnaa xalku waxa weeyaan inaynu aakhiro u diyaar garowno waa xaqiiqa maalin aan fogeyn waa lagu qaadi uun inaynu diyaar noqonno saa daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam nin saxaabadiisa ka mid oo dhallinyaro ah cabdillaahi ibnu cumar waa nin dhallinyaro ah shaab ah haya cabdillaahi dee waa ninkii qaswata uxud laga reebay la yidhi adugu waxaa tahayeen weli maad qaangaadhin qaangaadh la'aan baa looga reebay dagaalka marka nin aad u dhallinyaro weeyaan ninkaa dhallinyaradaa buu nebigu la talinaya intuu garabka qabtay buu nebigu wuxuu ku yidhi kun fi dunya kaannaka gariibun aw cabir sabiil haddii warka nin weyn lagu odhan lahaa waxaad odhan lahayd dee waa nin warka dunida soo dhameeyey oo waxaa la leeyahy war aakhire adigu kollay cimrigaagii qaadataye aakhire usii diyaargarow baa lagu yidhi laakiin maaha waa nin iminka soo korayo hadda qaangaadhay ama qaangaadhaya wakhtigaa ku jira nin wakhtigaa ku jiruu nebigu wuxuu leeyahy kun fi dunya kaannaka gariib adduunka waxaad ku ahaataa sidii qof strangera qof meel aan safar ku yahay soo galay aw cabir sabiil ama qof waddo goynaya adduunka sidaa ku noqo qadiyaddaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wiilkaa yare cabdillaahi bnu cumar ibnu alkhataab oo uu sheegay wuu fahmay wiilkaasi waa weyleeyey saxaabaddu waxayna iga gedisaneed waa taa waxa loo sheegaa bay weylaynayeen way fahmayeen kadib cabdillaahi dadka markuu la dardaarmayo wuxuu ku odhan jiray idaa amsayta falaa tantadir الصabaax وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك إمام البخاري soo saaray wuxuu dadka ku odhan jiray ibnu cumarna war hooy haddaad garabaysato waa beriga ha sugin iminka aakhire usii diyaar garow waagaa kuu beryi doono berrina waad sii shaqo tegi doontaa oo halkii baad arrinka ka sii wadi doontaa taa ha sugine xisaabta waxaad ku dartaa caawa hadday kaa baxda maxaa xala falaa tantadir الصabaax wuxuu ku yidhi haddaad waa berisatana galabnimada ha sugin xisaabtan caafimaadka intaad qabto bukaankaaga u sii qaado dadku markuu dhakhtarka gale xanuunsado haddaad imika dhakhtarka tagto oo aad dadka weydiisa maa hiya umniyatak maxaad rajaynaysaa maxaad jeceshay inaad hesho maxay odhanayaan dadka dhakhtar ku jira inaan caafimaado soo maaha inuu ka kaco ka suuqa jooga haddaad ku tidhahdo oo bal caafimaadkaaga ka warran oo maxaan ku haystaa waaba gaajoonayaa buu leeyahy keerna umniya buu yey wuxuu is leeyahay ilaahu yaa marunku kiciya hadduu bilyaneer yahay wuxuu is leeyahay bilyanka haddii la yidhaahdo wadnaa lagugu bedelaya ma bixinaysaa wuu ogol yihi waar waan iska xoogsan doonaa nolosha dib baan u bilaabi buu leeyahay bal horta wixii lagu caafimaadayoon ha lagu bixiyo laakiin haddii la yidhaahdo 100 kun ka bixi waar xooluu dhaqdhaqiguma soo gelin buu leeyahay kunkaa qaata saxanka maaha qof gaara maaha waa dhammaanteen waa saa inuu haddaanad adigu naftaada wax ka bedelin waa saad u abuurantay saa daraaddeed buu ibnu cumar wuxuu leeyahy waar caafimaadka intaad ku jirto u sahay qaado bukaankaaga berri inaad caafimaad qabi doonto garan maysid caawaad caafimaad qabtaa waad tukan kartaa waad wardii kartaa waad nebiga ku salliyi kartaa calayhi salaatu wasalaam waxaad doontaad samayn kartaa laakiin berri inaad weysaysan kari weydaababa dhici karta jamac iyo jamaacada inaad gaari weydaabaa dhici wax kastaa dhici kara wa min xayaatika limowtik geeridaada u sii qaada buu yidhi maxay noloshaada walidaalika uu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka ka sugan wuxuu u tilmaamayey isagoo nin saxaabiya waaninaya wuxuu ku yidhi war shan u qaada buu ku yidhi
dhallinyaronimadaada ka faa'iidayso inta aanad gaboobin caafimaadkaaga ka faa'iidayso inta aanad bukoonin waxayntaada haninimadaada ka faa'iidayso inta aanad faqrinin inta badan dadku markuu xooluhu dhaafaan buu is idhahdaa haddaad wax ka bixin lahayd haddaad tolka wax ka tari lahayd haddaad aakhire wax geysan lahayd firaaqadaada ka faa'iidaysa buu nebigu leeyay intaanad shuquloonin dhallinyaradu inta badan waxay dhahaa firaaqada xaggaynu wakhtiga ku soo dillaa maanta waa cimrigaagii qayb ka mid a ayaad le xaggaan ku tuuraa wakhtiga xaggaynu ku dilla xaggaynu isku dhaafinaa maqaaxidaa la tegaya maanta o dhan baa la sheekaynaya waa cimrigaagii ka mid a maanta o dhan baa t v la daawanaya wax laga helayaa ma jiro noloshaada haddii la xisaabiyo intaad t v-ga daawatay intaasoo sannadood bay soo baxaysaa intaad maqaaxi fadhiday intaasoo sannadood bay ka warra haddii lagu dhaha intaa cimriga ha lagaa jaro maad aqbasheen 10 sano dhowr iyo 10 sano markay soo baxda maad aqbasheen markaad haysato se saad u isticmaalaysaa waad saydhinaysaa qofka bini aadamkii hantida ugu weyne uu haystaa waa cimrigiisa hantida ugu weyne aad haysataa waa wakhtigan yar wakhtigiibaaba waxaad ku qabatay daaya aad la'day meelaad ku disho xagaynu wakhtiga isku dhaafina xagaynu wakhtiga ku dilla waa adigoo leh cimriga in ka mid a xaggaan ku tuuraa noloshaydii cimrigayga in ka mid a khasaaraah aanan rabina xaggaan geeya walidaalika buu nebigu wuxuu leeyay firaaqaaga ka faa'iidayso inta aanad mashquulin qofku mar kasta uu sii weynaadaba mashquulkiisaa badanaya waayo xidhiidhku bulshada la leeyaa ka badan ninka dhallinyarada ee xidhiidhku la leeyay saa daraaddeed qofku da'diisu mar kastoo ay yartayba wakhtigiisao dhan isagaa leh laakiin inta badan dhallinyaradu ma garato kama faa'iidayso qofku markuu sii weynaadabana yaa wakhtiga kuu kordhiya buu israa 24 saacadoodba ku yaraada stress buu qaadaa suu leeyahay hebel la ballan baan la leeyahay xaggana ballan baan ka leeyahay reerkiina xagguu sugaya qoladana waxan bay rabtaa idan nebigu wuxuu leeyahay war intaanad mashquulin firaaqada ka faa'iidee intaydan geeriyoon baa nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam nolosha ka faa'iidayso ayuha alaxiba rajadan tirada badan leh qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa inay tahay aaladda ibliisku uu bini aadamka ku lumiyo waa farsamooyinka ibliis adeegsado ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy ina aladiina irtaduu calaa adbaarihim min bacdi ma tabayana lahum اlhuda الشayطaanu sawala lahum waamlaa lahum baa ilahay yidhi kuwan diinta ka noqday iyagoo hanuunka intuu u caddaaday kadib shayطaankaa wax u qurxiyey oo rajo geliyey baa ilaahay leeyahy idan waamlaa lahum amalkan dheeri waa farsamada shaydaan uu dadka ku lumiyo nebi aadam muxuu ku yidhi markuu rabay inuu geedka cuno yacni waa baahi bini aadamku uu qabo walidaalika aadam ba halkaasaa laga galay cimrigaa lagu dheeraynayaa baa lagu yidhi qaala yaa aadamu hal adulluka calaa shajarati اlkhuldi wa mulkin laa yabla geedka waaritaanka ma ku tusaa buu ku yidhi geed aad ilaahay ku caasiyayso ma ku tusaa ma odhanin ee nebi aadam waxaa loo sheegay geed haddaad cunto aad in badan jirayso aadaniya intuu dhalayba inay in badan jiraan way jecel yihin laakiin waxaa rasmiga ahi waxa weeyaan qofku inuu diyaar noqdo maxaa cilaaj u ah arrintan abuurkeenna ah waxaa cilaaj u ah dikru اlmowti wاlaakhira aakhira xusuusteeda inaynu badinno inahum yarawnahu baciida wanaraahu qariiba baa ilaahay leeyay dadku wax fog buu u arkayaa annana wax dhow baanu u aragnaa buu nebigu ayuu rabbi leeyahy subxaanaه wa tacaala nebiguna wuxuu leeyahy calayhi الsalaaةu wasalaam xadiid ibn abi dunya uu soo saaray sheekh alalbaanina xasan ku tilmaamay najaa أwalu hadihi اlأumma biاlyaqiini waالzuhd ummaddatan dadkeedii hore saxaabadii iyo dadkeedii hore waxay ku badbaadeen buu nebigu yidhi yaqiin ay ilaahay iyo aakhire iyo diinkooda yaqiin ku qabaanoo rumaysay inay shaki kaga jirin iyo zuhdi adduunku ahun gurigiisa iska yareeyeen adduunya jacaylka oo ay zuhdi ka qaateen iyo yaqiin ay rabbigood iyo aakhire iyo wixii loo sheegay ku qabaan wayahlik aakhiru haadihi اlumma buu nebigu leeyahy ummaddan inteeda dambena waxay ku halaagsami doontaa maxay bilbukhli waalamal buu nebigu yidhi gacanadayg dhabcalnimo gacanadayg
qofka oo is yidhaahdo adiga kuguma filla bini aadamku wax kasta oo is haysto ka dambayso buu ka sii baqayaa faqru ka cabsi qaba aadaan waa caynka dabeetana nebigu wuxuu leeyahay ummadda dambe waxay ku halaagsami doontaa laba shay gacan adayg iyo amal rajo in shaa allah berrina waad sii noolaan doontaa sannadaa weli kuu hadhay wakhtaa hadhaye weli dhallinyaraatu shaydaanku ku odhan adiga weli kaama dhowada imkaad bilowdayba waa labaday ku halaagsameen buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidkii tirmidi iyo ibnu maaja warinayeen imaamu nawowina uu riyaadkiisa ku soo saaray sheekh alalbaanina dacfiga ku sheegayey macnuuse wuu saxiix yahay wuxuu tilmaamayaa alkayisu man daana nafsahu wacamila lima bacda almowt kayisku waa caaqilka waa qofka kasmada fiican nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam hadduu xadiidku sugan yahay kayisku qofka caqliga badan leh waa qofka geerida waxa ka dambeeya u xoogsada hubaal waxa ah inay xikmad saxiixa tahay geerida waxa ka dambeeya qofka u xoogsada caajiskuna qofka tamarta daran lena waa qofka naftiisu hawadiisa iska raacda watamanaa cala allahi lamaani yani ilaahayna uun in sha allah in allaha gafuuru raxiim rajadana iska qaba idan ayuha alaxiba ilahay wuxuu ina leeyahy laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli اlkitaab man yacmal suuءa yujza bih yididiiladiinna iyo umniyadiinna iyo waxay iska rajaynaysaan ahlu kitaabka iyo idinka toona maaha baa ilahay yidhi muslimka iyo kristan iyo yuhuud baa loo garnaqay ilahay wuxuu leeyahy labadiinna qoloba sheegashadaa sheeganaysaan inay rajada qabtaan arrinku maaha ee waa maxay man yacmal suuءa yujza bih nin waliba wuxuu shaqaystaa buu leeyaha rabbi leeyahy waman araada alaakhira wasacaa laha sacyaha araada kuwii hore waxaa la tilmaamay yuriiduuna alxayaaةa اdunya waziinataha kuwana waa nafsu shay waman araada alaakhira aakhira ninka doonaya qasdigiisu aakhiraye ma intuu aakhiro dooray buu iska fadhiistay maya xaraka iyo dhaqdhaqaaqna wuu ku daray wasacaa laha sacyaha baa ilahay shaqada aakhirana qabtay aakhira shaqo gaaray leedahay wasacaa laha sacyaha baa ilahay qofka aakhiro raadcaynaya liwajhi illaahi wax u samaynaya sacyigii loo baahnaana la imanaya isagoo mu'mina fa ulaa'ika kaana sacyuhum mashkuura baa ilaha yidhi kuwaasi waxay qabteen iyo sacyigooda waa laga abaalmarinaya ayuha alaxiba maanta waxaad qaban karto ayaad berri u calaacali saa daraaddeed maanta inaad u diyaargarowdaaba habboon xadiid imaam abraani isnaad xasana uu ku soo saaray sheekh alalbaanina saxiixu tarkiibka ku aroorinaya wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xabaal buu soo maray nebigu markaasuu wuxuu yidhi man saaxibu hada alqabr waan xabaashani waa xabaashi kuma markaasaa la yidhi waa hebel waa nin dhintoo meyda xabaashi ayuu nebigu isdul taago wuxuu yidhi xabaashani waa kuma waxaa lagu yidhi xabaashan hebel baa ku jira wuxuu nebigu saxaabadii intuu ku jeesto markaa wuxuu yidhi ragcataani axabu ilaa haada min baqiyati dunyaakum buu nebigu yidhi laba ragcadood oo salaada u tukado ayaa maanta ninkani ka jeceliyey adduunka haysataan oo dhan ninkan haddii la yidhaahdo adduunka oo dhan iyo laba ragcadood keebaad dooranaysaa laba ragcadood buu ka jeceliyey buu nebigu u tilmaamay yani xabaal dusheed buu nebigu ku wacdinayaa saxaabadiisa waxaanu u sheegayaa laba ragcadood marka la gaadho halkaasi inay ka qiimo badan tahay wixii dunida la soo qabto oo dhan haddii amalku iska dheeraado oo diyaargarowgu yaraado oo dadku sidaa ku dhintaan calaacal baa ka dambayn doona yaa laytanii qadamtu lixayaati rabbi irjicuun lacallii acmalu صaalixan fima tarakt ilaahayna bini aadamka uu yaqaanaayo wuxuu tilmaamay walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu baa ilahay yidhi wax ka cajab badan bini aadamka abcigiisa haddii la celin lahaa baa ilaahay yidhi halkii un bay ka bilaabi lahaayeen haddana hariib soo maaha ninkan intuu soo arka naar iyo balaayada jirta markuu halkan yimaado haddana halkii un dib uga maysi karaa hadduu dib loo celiyo baa ilahay yidhi halkii un bay ka maysi lahaayeen waayo fitratu linsaan waa tii un laakiin qofku hadduu ku talagalo ilahay wuxuu ina leeya ya ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllah waltandur nafsun maa qadamat liqadin
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون warkuwa iimaanka laga helayo wara la ka cabsado berri ka fakara baa leeyahay nafi waxay berri u dhigatay aakhiro waxaad geysatay kaa eeg baa ilaahay yidhi idan ayuha alaxiba cilaajka ugu weyna masalada tani waa xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi akiruu min dikri haadimi ladaat badiya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xasuusta ah xasuusataan macmacaanka ka gooya macmacaanka ka gooya waa geerida dhulka gaaladan waxaan arkay gaaladu ma jecla geerida in laga warramo meelaa fadhidan haddii geeriya waxaa laga kala dareeraan waa kaa kacayaa inay ilaabaan bay ka jecel yihiin ma jeclaa inaad xabaal iyo geeri iyo baabka inaad agtooda kaga warranto ma jecla inay siilowsiyaan bay rabaan nebiguna wuxuu ina leeyahay calayhi salaatu wasalaam xasuusta geerida badiya oo xasuusta geeridu waxay noqonaysaa markaynu caawa masaajid ka baxna haddaad tidhaahdo war bal caawa hadday naftu soo noqon weydo talow xaggaan qaban de waad xisaabtamaysaa caawa haddaad tidhaahdo war naftu xaggay qaban hadday baxdo waad xisaabtamay sida awgeed buu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam geerida xasuusteeda badiya idan ayuha alaxiba amalka tirada badan leh adduunya jacaylka tirada badan leh khaflada tan dadka ku dhacday yaynan sida gaalku u fakero u fakerin gaalku intaasunbaa u muuqataa maadadaa yar adduun inaad gaalun kula loolanto aakhiraba ilowdo waa cajab dadka muslimiintii waxay u baahan yihin inay iyagu aakhiro xasuustaan dadka kalena inay aakhiro xasuusiyaan nolosheennu markaynu xisaabinno inay aakhiro boos ku yeelato maanta waxaan qabanayo inaan ku xisaabtamo aakhire maxaan geystay caawa markaan seexanaya inaan ku xisaabtamo waxaan soo sameeyey waagu markuu bariyey ilaa iyo gobolku intuu dhacayay ama waad hadlaysay ama mid hadlayaad degaysanaysay socankaa maaha waagu markuu bariyey baynu hadalka bilownaa haddaanaad adugu hadlayna mid kaloo hadlayaad degaysataa markaad seexato bal xisaabiyo intii aad maanta maqashay ama ku hadashay imisaa kitaabka fiican kuugu qoran baad u malaynaysaa imisaad saladay baad ajar ka helaysaa imisaad se ajar ka helayna idan hadalkaagu warduu u badan lahaa haddii xisaabtankaagu badan yahay warku wuxuu ku kooban yahay oo naftayda iyo tiinaba ku waaninaya noloshan aynu israacinnay aan ka gaabsanno macnaheedu ma aha iyaan la xoogsanayo caynkan xoogso laakiin xoogsi aakhire ku geynayo xoogso markaad xoogsanayso xalaal xoogso xalaashaas iyo cibaadaadkaaga iyo diinkaaga ku dhaafini ku talagalun caawa hadday kaa baxdo waxaad ilaahay la hortegi lahay aqwaasha salafka laga soo arooriyo haddaynu akhrino wakhtigu kuma filla laakiin aqwaal badan ba salafku waxay tilmaamayaan rag ku xisaabtami jiray salaadan salaadeeda inaad tukanayn anigu berri baa is yidhi ma ilaa berri midi wuxuu yidhi anigu ilaa berri kuma xisaabtama ilaa caawa waad noloshaad dheeraysatay buu ku yidhi anugu salaadan salaada ku xigta inaanan gaadhayn baan ku xisaabtamaa buu yidhi idan tanun baan si fiican isdhaahw tuko ilaa tii dambe lama hubo inaad gaadhi doontee hadduu arrinku saa yahay salaadaheenna way hagaagayaan salaad khushuuc lay noqonaysa haddaad se isleedahay kollay maalmaad sii jiri doontaa kuwa dambead hagaajin baad iska dhaadhicin khaatimadaad fiicnaysiin doontaa ilahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu khaatimada khayr inoogu khatimo kuwii aakhiradooda ka fakerayna alla inaga yeelo inta aakhiro u xoogsatay adduunkana hilmaamin in rabbi inaga yeelo sala allahuma calaa muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin شيخ الله سبحانه وتعالى فأقبله أمانة وأرفعه فحاول شيء على المسلمين كيف الدعاء شيخ إن شاء الله تعالى